daawadeel wardegdega dowladda dalka Turkiga ayaa waxay noqotay dowladaha muslimiinta marka la suuqeeyo. dowladda qaybta warshadaha difaaca ayaa dowladeedu waxay soo saartaa sanadkii 160 wadan in gaaraysa waxay gaarsiisaa gaadiid kala duwan oo kuwa dagaalka. waxayna sheegtay in dowladda dalka Turkiga qaybo kamid ah ay ku tiirsan tahay dhankaas iyo warshadaha. warbixin ayaan idinka haya. dalka Turkiga warshadaha difaaca ayaa noqday mid kamid ah qaybaha ugu badan ee dhaqaalaha Turkiga. wax ku soo siyaadiya in ka badan 3500 oo shirkadood iyo sidoo kale 80,000 oo shaqaale ah oo sanadkii iyo sidoo kale xilliyadii ugu dambeeyayba ay shaqaaleysiiyeen 2023 waxaan gaarnay ayuu madaxweynaha dalka Turkiga 5.5 bilyan oo dollar anagoo ka iibinayna 230 nooc oo wax soo saarka warshadaha difaaca dalka Turkiga. waxaan sidoo kalena ka iibinaa ay dowladda dalka Turkiga gaar ahaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan yiri 185 wadan ayaan markaasi geynaa. waa arin markaasi cajiib ah oo waxaad aragtaa in dowladda dalka Turkiga ay sanadihii ugu dambeeyay dhaqaalaha ugu faraha badan ay ka sameysay. walow dowladda dalka Turkiga waxyaabahan badan ay soo bandhigtay dhammaantoodba ay yihiin kuwa u hirgalay dowladda dalka Turkiga. waxaanad moodaa inay ka mid tahay wadamada muslimiinta ah ee markaasi dhaqaalahoodu bilihii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay uu kobcayay. ugu dambeyntii daawadeel dowladda dalka Turkiga waa dowladaha muslimiinta ee waqti xaadirkan ama sanadihii ugu dambeeyay kobaca dhaqaalaha sidoo kale mid militariba si fiican u gaaray. haddaba arintan ayaa waxay salka ku haysaa ka gadaal kadib madaxweynaha dalka Turkiga arinta la xidhiidha siyaasadiisa inuu si weyn u soo qaaday dalkiisa haday noqoto dhanka markaas tiknoolajiyada oo wada aragteen diyaaradaha iyo wax kasta wax taangiye ciida ka fara badan. waa arin cajiib ah wadan muslim ah oo taxadirkan kaalmaha ugu horeeya ku jira kamid yahay. fadlan muuqaalkan si share gare waxaan rajaynayaa in dowladda Soomaaliya uu qaybo kamid ah u gaarsiin doono. waana mahadsantiin saaxiib muuqaalka si share gare sidoo kale page kan ama TikTok tan cusubna ana iskale wararka Soomaalida sidoo kale dhacdooyinka gaarka ayaan ku soo baahinaa. wardegdega ayaan leeyahay waana mahadsantiin saaxiib.